السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيمة بدن كسر وهذا كوسو مالي ميديا محكمة كتالة دلك التركية أي أمر كبحسي إن لصاحره أو لصاقبته رئيس الوزراء إسرائيل نتنياهو أرهنتن إرك أي إسكو شررتي حتى إسرائيل ويسو جوابتي وزيرك أرمها الدبادة إسرائيل أي سياب لأوها اللي حالة ميل أدق أي مريسا نتنياهو والولك أي كوكورني حرق محكمتها أمري إنه يسوى لصاحره أي سيد بدنية معلومات عجيبة يشاكا أرهنتن كده حجرته يجوابها اللبضة لناع أياندين هيا qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku dul istaagi doono iyana waxa kamid ah Mareykanka ayaa sheegay in iyagu la wareegayaan korjoogteynta kaalmada soo galaysa Gaza waxana la isku raacay inay muhiim tahay in Israa'iil laga joojiyo xaaladda hakinta kaalmada soo galaysa Gaza waxa la isla garkeenay in Israa'iil mardama laga wareysanin cunnada iyo kaalmada bini'aadanimada Gaza soo galayso sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo siin lahaa meel ay ka baxaan kooxaha ka tirsan Hamas ee ku xayiran godadka ku yaala dhanka Rafah koonfurta Gaza taas iyo xaaladda meesha ay marayso ayaan idin diyaariyay qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku dul istaagi doono iyana waxa kamid ah Iran waxa ka soo yeeraysa qeylo weyn halis weyn ayaa ka taagan magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran madaxweyne Pezeshkian ayaa sheegay aan yiraahdo in Iran looga tagi raba caasimadeeda biyo la'aan darteed xaaladaasi waa xaalad yaab leh iyana waan isla eegi doonaa qodobka ugu dambeeyana barnaamijku waxaad ku maqli doontaa dalka Suudaan militarigeeda ayaa sheegay inaysan qaadanaynin oo ay iska diideen qorshaha heshiiska u dhaxaynaya militariga Suudaan iyo jabhadda RSF oo ay wado Imaaraadka Carabta taa bedelkeedana safiirka u fadhiya dalka Suudaan Washington dalka Mareykanka Maxamed Abdallah Idris wuxuu leeyahay hal lagu daro jabhadda RSF liiska argagixisada qodobada iyo kuwa kale ayaa sheeko yaab leh ayaa mar kale ka dhex taagan Turkiga iyo Israa'iil xiisada ruucirka ay maraysaa waa luuqadii ugu adkayd waa amarkii ugu cuslaa ee ay soo saartay dawladda Turkiga waxaana la sheegay waa hiilkii ugu weynaa abid intii dagaalka Gaza uu bilowday ay Turkiga qaadaan waxay hadda amar ku soo saartay maxkamad ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga in la soo xiro Netanyahu ma ahan dacwo lagu oogay la soo raadiyo ma aha hal la soo xiro soo jeebeysan hal keeno sidee lagu soo xirayaa hadii hawada Turkiga uu soo miro waa xarag Netanyahu wala xirayaa hadii meel Turkiga kamida uu soo galo waa la xirayaa Netanyahu 100 sano ku qaad hadduu noolaado umrigiisa intaas ma ka harinba 100 sano ma gaarsan ma gaari kara bini'aadan gaarar ma jiro hadduu baartay waa yeelyahay hal la soo xiro sheekadii markay soo baxday oo maxkamadii Istanbul warkan ay soo saartay warbaahinta caalamka dhasaaka ilaa xalay way qabsatay horeyna Netanyahu waxa in dacwo lagu soo oogay oo xasuuq bini'aadan ay uga furnayd maxkamadda dambiyada dagaalka ICC gudaha Israa'iil dacwo uga furnayd oo musuqmaasuq ku takrifal awoodeed dacwooyin culus ilaa Mareykanka ay yiraahdaan anaga soo faragashanayno xaaladii oo meesha marayso maxkamadda ku taala Istanbul judge-kan waxa uu qaaligan isna soo amray in la soo xiro Netanyahu waa la jaray warqadii markay amarkan uu soo baxay isla markaba bartii Twitter-ka waxa soo hadlay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar oo careysan wuxuu leeyahay Turkiga hore waxay u xireen Erdogan iyo kooxdiisa siyaasiyiin Turkiga gudaheeda jooga oo reer Turki ah waxay xireen duqi magaalada Istanbul wuxuu ku sheegay Erdogan iyo kooxdiisa inay kaligiistaliyaal yihiin wuxuu yiri haddana say u socdeen Netanyahu la soo xiray ayay keeneen hadalkaas oo loo qaatay in wasiirka arrimaha dibadda uu ka jawaabo inaysan ahayn maxkamad Israa'iil agteeda ka fudud inay tahay culays siyaasadeed iyo mid sumcadeed oo ku dhacaysan Netanyahu dadka arrimahan ka faalooday waxay leeyihiin xitaa hadii sharciga maxkamadani amarkeedu uusan dhaqan gelin waxay ku tahay sumcad xumo Netanyahu sumcadiisa dhulka sii gelinaysa waxay ku sii badinaysaa cabsida waxay ku keenaysaa dalal kale inay ku daydaan oo ay dalalku markan xitaa UN-ka maxkamadiisa ay sugin awoodaha dawladaha ay leeyihiin hadday dhowr dawladood dhahaan Netanyahu waa la soo xirayaa oo maxkamad u jaraan intuu maraya hawadii u mari lahaa ayaa ka xayirmayso hadda wuxuu ka leexdaa France inuu maro wadamo badan oo ka leexda markuu UN ku socday hadda
hadda hawada Turkiga uu ka leexanaya oo markii horeba laga mamnuucay oo diyaaradda Israa'iil laga mamnuucay Turkiga waxay u muuqataa maalinba maalinta ka dambayso tallaabo la dib ku Israa'iil ay qaadayso oo markan ay u muuqato in la gaaray xilligii aan laga gabman lahayn Israa'iil adduunkana lagu soo jeediyo tani waxay sidoo kale ku noqonaysaa baa la leeyahay maxkamadaha tirada maxkamadeed ee Netanyahu xariga iyo dambi iyo dacwo inuu dambiileeyahay ku soo oogayso dhulkay ku jiidaysaa liiska profile-kiisa iyo mustaqbalkiisa marka laga sheekeynayna waa ninka ay raadinaysa maxkamadda dambiyada dagaalka waa ninka labadii isbuuc mamar maxkamad gudaha Israa'iil la keeno waa ninka maxkamad ku taal Istanbul ay amartay in la soo xiro horta magacaas adduunyada magac waa la ilaaliyaa iyo qofku waxyaabaha uu ku nool yahay waxay tani ku noqonaysaa dharbaaxa kale oo dhanka sharciga ku dhacday Netanyahu Turkiga maxay u noqonaysaa Turkiga waxay muujinaysaa awood sharci waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay si kastay awoodeedu u xadidan tahay leen Israa'iil wax kale iska daa intaan Mareykan iyo galbeed kale la gaarin Netanyahu kooxiis waxa hoos ku wata dalal Carbeed oo ay ka mid yihiin Masar Imaaraadka Morocco iyo kuwa kale iyo kuwa muslimiina oo ay ka mid tahay Azerbaijan saaxiib la tahay Kazakhstan hadda waa aragtay sida u dhaqanta khayraadkeedii Mareykanka faraha ka saartay wadamo muslimiin oo Asian iyo waxyaabo kale isku jiray Carab ayaa sidan maarad u daba socdo Turkiga kaligiis markii awoodiisu way xadidan tahay Pakistan aragtay nuclear kale go'aamankiisa militariga isaga kama go'o siyaasiyiinta Turkiga siyaasiyiinta Pakistan awoodooda iyaga ma maamushaan waxaa la tilmaamaa Turkiga inuu yahay dalka kaliya ee muslima ee sida madax bannaan go'aan u gaari karo laakiin haddana adduunka dal walba go'aamadiisu wuxuu ku xiriirsan yahay siyaasadaha caalamka ka jiro awoodaada mararka qaar waxaa xadidaya oo ka dhigaya qof aan wax qaadi karin sida ay u socoto dabeesha siyaasadeed ee caalamka waana wax badan Turkiga waxa cuuriyaamiyay marka Lubnaan marka Iran marka Masar Imaaraadka Sacuudiga wixii oo dhan aadan isku falsafad ahayn ama isku aragti aadan ka ahayn danaha islaamka maxaa dhici kara marka waxa dhici kara kaliya inaad meel cidla ku soo dhacdo awoodaadana ay koobnaato haddaba Turkiga talaabooyinka uu qaadayo oo ay ka mid tahay ciidamada nabad sugid oo Turkiga ka socday in Gaza la geliyo in furitaanka wadooyinka Gaza uu qayb ka noqdo in laga shaqeeyo dagaalka Gaza inuu joogsado in Netanyahu hadda la soo xiro oo dhow waa tii ugu cuslayd oo ay qaadaan oo talaabo muhiim ah lagu sheegay inay tahay marka laga hadlayo dhanka sharciga waayo walaalaha qiimiga loo qodobka markaynu meesha uga gudubno aynu toos u galno qodobka xiga barnaamijka oo aynu ku dul istaagayno Mareykanka ayaa lagu waramayaa in hadda uu xaqiijiyay in iyaga ay toos u kor joogteynayaan kaalmada gudaha Gaza soo galayso oo aan lagu eeganaynin Israa'iil iyo sida ay u xadidayso cunnada dadka reer Gaza uga imanayso goobaha xuduudaha gawaarida ka soo galayso waxa hadda hay'adaha UN-ka ay dhamaan sheegeen in kaalmada Gaza soo galayso ay aad u yartahay dadka reer Gazana wali ay wajahayaan macluul aad u daran iyadoo la sheegay qofka Gaza ku nool maanta in hal saddexdii waqti uu ugu badnaan heli karo oo kaliya in uu hal waqti wax cuno taas oo macnaheedu ay tahay in Gaza ay tahay magaalo ku xiran gawaari raashin soo gala waxa ay keenaan gawaarida xuduudaha ka imanaya raashinka ay soo galiyaan ay ku xiran tahay nolosha dadka reer Gaza waxa ay biilanayaan bal waxa sawirata magaalada suuqyada shaqeyneen magaalo aan khayraadkii iyo beerihi aan shaqeyneen magaalo qayb ka mid ah 850 Gaza wali waxa haysta Israa'iil oo military Israa'iil baa yellow line ilaa ay koonfurta dhinacaas oo dhan haysto Mareykanka hadda waxay leeyihiin marka kor joogteynta inaga la wareegeen Mareykanka marka maxay waxa soo dhan u sameynayaan maamulka Trump wuxuu ka cararayaa dagaalkii in uu soo noqdo heshiiskii Sharm el-Sheikh oo burburo maxaa burburin kara waxa burburin kara cunnada qasoosan ku sii socoto yaraato ila dadku waxay cunaan markay waayaan albaab walba laga galo xal u haray ma lahan oo aan ahayn in ay dagaalamaan inay waxay cunaan raasadaan inay halgamaan labo kooxda ka tirsan Hamas ee ku xayiran 150 ilaa 200 ayaa la leeyahay waxay ku xayirin koonfurta godad halkaas ku jiraan cunadii biyihii wixii cunaa gabaabsi ka yihiin qoryahoodii hubkooduna oo dhameystireen kooxdan waxay ku qasbanaan doonaan inay dagaalamaan
maraykanku wuxuu leeyahay si aysan xabajoojinta u burburin masar ayaa waxay hore u soo jeedisay in kooxdaas hubkooda ay masar ku wareejiyaan meel ay ka baxaan la siiyo barnaamijkii xalay ayaanu ku soo qaadanay cid u baahan halkaas iyadoo dhameystiran ka heli kartaa laakiin maraykanka hadda wuxuu leeyahay isagu waxaa la siinayaa meel ay ka baxaan Israa'iil arrintaas lagala hadlayaa oo waxay marayaan maaragtay hadda marka waxa leeyahay dadkan haday hal bil kale ilaa 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc taqriiban bil haday meesha ku sii jiraan noloshooda khatar ay ku jiraan marka god hoostooda ku jiro oo meel ay ka baxaan la oo horay cadowga uu ka joogo ragii ay la dagaalamayeen raashinkii biyina ka sii gabaabsiin hal ma jira ayaa la leeyahay oo ah in dagaalkii Gaza uu soo noqdo si taasi ay soo dhicin aysan wada hadalada u burburin ilaa Xamaas hadda waxa laga dhaadhicinayaa inay hub ka dhiibaan Gaza lagu wareejiyo iyagana ay ka baxaan oo Gaza lagu wareejiyo guddi Falastiiniintu ay leeyihiin ka horna ciidamada nabad sugida oo Turkiga Qatar Sacuudiga iyo wadamo kale Pakistan Malaysia inta wadane ugu dambeyn la soo qaato ay soo galaan oo dhammaan hadda la leeyahay wadamo muslimiina ay ciidamadaas ka imaanayaan hadii marka nimankan godka ay ku sii jiraan khatarta way sii badanayaan farsamadan marka Mareykanka hadda uu keenay oo aadna arrintan uga hadlay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa lagu waramayaa in ay noqon karto xalka kaliya dagaalka Gaza looga baaqan karo inuu soo noqdo loona gudbi karo in Hamas ay hubka wareejiso Gazana lagu wareejiyo dad reer Falastiin laakiin hadii aysan taas dhicin markale dadka reer Gazana waxay wajahayaan xaalad dagaal Israa'iil iyo Mareykanna waxay ku sii jiri doonaan dagaal kale oo waqti dheer qaato shalay warbaahinta Israa'iil waxay qorayeen in kastoo Israa'iil ay dagaal Gaza ay dib weyn gaarsisay oo Hamas wax weyn uu gaaray haddana waxa la leeyahay Israa'iil wali dagaal Gaza kuma guuleysanin dagaalka Gaza hadii uu soo noqdana Israa'iil waxa sugaysa waqti dheer oo dib badan oo dagaal badan oo ay gasho waayo walaalaha qiimiga loo qodobkii koreey markaynu meesha uga gudubno intaynu u gudbin caasimada Tehran ee xaalad yaab leh laga soo sheegayo madaxweynaha dalka Iran oo hadlay intaynu u gudubgalin qodobkaas iyo sidoo kale xaaladaha ka taagan Suudaan safiirka dalka Suudaan Washington u fadhiyo oo Imaaraadka ku eedeeyay xasuuqa ka socda Suudaan codsiga u dirsaday Mareykanka balaan isla eegno wargeyska Jarmalka ka soo baxay loo yaqaan Blind ayaa ku waramay in sirdoonka reer galbeedka ay ogaadeen Shiinaha inuu wax ka bedelay qorshihiisii duulaan ee ku qaadi karo ama uu ku qaadayo jasiiradda Taiwan wuxuuna soo hormariyay xilliga uu isku dayi karay inuu awoodda military u adeegsado ama awood military uu isticmaalo jasiiraddan si uu gacanta ugu dhigo taa oo dhici karta dabayaaqada sanadka 2026 gaar ahaan haddii Mareykanka uu galalo qalalaas la xiriiro doorashada Shiinaha waxa ka go'an arinta Taiwan inuu soo gabagabeeyo oo markaa wuxuu aaminsan yahay dhulweynaha China inay ka mid tahay Taiwan waxay rabtaa inay China ka go'o oo gool isku taag ay taagan tahay waxay isku diyaarinayaan Shiineeska muddo ay diyaarinayeen inay Taiwan gacan ku dhigaan awood ahaan China wuu qaban karaa Taiwan laakiin waxay gelin kartaa dagaal ayaa la leeyahay Mareykanka uu rabaa in China dagaal u galo China marka wuxuu la raadinayaa fursad khalalaaso iyo xaalad mashquul oo Mareykanka galo intuu mashquulkii yahay inuu kaga faa'iideysto in uu Taiwan qabsado dalka Suudaan wali waxa ka socda dagaalkii u dhaxeeyay jabhadda RSF iyo militariga dalkaasi militariga Suudaan ayaa shaaca ka qaaday inay fuliyeen dhowr weerar oo lagu gubay gaadiid sahayda u sida jabhadda RSF mid kamid ah weerarada oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore lagu gubay gaadiid ka yimid Liibiya oo saarad military u siday kooxda RSF militariga dalka Suudaan ayaa aaminsan dhammaan hubka military ee soo galay iyo kaalmada u imanaysa RSF inay uga timaado dhanka Imaaraadka oo siyaabo kala duwan u soo geliyo gudaha dalka Suudaan dhinaca kale Suudaan ayaa gabi ahaanba militarigeeda waxa ay diideen inay aqbalaan soo jeedin ka timid Imaaraadka Carabta oo ay heshiis la dhex dhigo jabhadda RSF ee dhibaatada weyn ka geystay deegaanada El Fasher Kordofan iyo sidoo kale deegaanka Darfur haddaba El Fasher oo Darfur iyo deegaanadaas ka tirsan
dad badan ayaa lagu baabi'iyay reer Suudaan ayaa lagu dilay waxa la tilmaamayaa militariga Suudaan ay sheegeen in xasuuq ka dhacay dad badan oo reer Suudaan ayaa koox loo dilay safiirka u fadhiya dalka Suudaan Washington dalka Mareykanka magaciisa Maxamed Abdallah Idris waxa uu sheegay in aysan iyagu aqbali doonin qorshe kasta oo Imaaraadka ka socdo waxa uu sheegay Imaaraadka waa cadawga reer Suudaan waxayna dhib ka yihiin dhibaatada ku dhacday dadka reer Suudaan waana iyaga kuwa soo diyaariyay ee Korea ee Quudiya jabhadda RSF si ay u burburiyaan mustaqbalka yaayaha iyo guud ahaan Suudaan oo dhan sidaa darteed ma aqbali karno qorshe walba oo ka yimaado Imaaraadka Carabta dhinaca kale safiirka Suudaan u fadhiya Washington Idris ama Maxamed Abdallah Idris waxa uu ka codsaday Mareykanka in ay ku daraan jabhadda RSF liiska argagixisada isagoo sheegay in ay galaan dambiyo cadcad oo keenaya inay yihiin argagixiso sidaa darteed codsiga Suudaan militarigeeda waxa uu yahay in jabhadda RSF lagu daro kooxaha argagixisada ee adduunka ka wada fowdada iyo dhibaatada iyo xasilooni darrada dadkana argagax iyo qalqal ku beera waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha uga gudubno qodobka ugu dambeeya barnaamijka saaka waxaynu ku soo xireynaa madaxweynaha dalka Iran Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in dalkiisu uu wajahayo xaalad biyo la'aan oo aad u daran waxa uu sheegay caasimada dalka Iran ee Tehran in looga guuri doono biyo la'aan darteed ayna noqon doonto meel cidla ah oo dad dhan ay deganeen waxa uu sheegay biyaha caasimada Tehran inay aad u yartahay hadda xitaa waxa lagu waramayaa xafiisyada dawladda inay biyo la'aan ka jirto iska daa guryaha caadiga xafiisyada dawladda hoteelada Tehran waxa ka go'aya biyaha sabab la sheegay biyihii qulqulka soo galayay caasimada iyo guud ahaan dalka Iran oo aad u yaraanayo iyadoo horey Iran ay ugu eedeysay in roobabkii dalka Iran qayb ka mid ah ay leexsatay Israa'iil iyadoo la isticmaalay tiknoolajiyada daruurihiina marka roobabkii dhinaca ay la wareegtay oo ay wareegsatay taas oo adduunka ku noqotay in hadda ay marayso in dagaal dhanka hawada la isla galo Iran waxa uu sheegay madaxweynaheeda Masoud Pezeshkian haddii ilaa bisha 12 ee December ee soo socota aan la helin biyo in ay wajahayso Tehran halis weyn waa dhawaq muujinaya sida xaaladda dhanka biyaha Iran ay ugu xuntahay oo xaalad adag ku jirto waxa uu ugu baaqay dadka reer Iran in ay ka tashadaan aayaha iyo mustaqbalkooda lama garan doona tallaabada xigta oo arintaasi ay uga gaashaamanayaan ama ay uga jawaabi doonaan Iiraaniyiinta biyaha waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha haddii ay noqon lahayd wax soo saarka oo beeraha oo dhan waxay u baahan yihiin biyo waxa uu leeyahay Masoud Pezeshkian haddii aan roob toos ugu doo caasimada dalka Iran Tehran la helin ilaa bisha 12 waxaan shaki ku jirin qax dhanka biyaha ama biyo la'aan looga qaxo Tehran inay ka dhalan doonto wallahi saaxiibada qiimiga leh barnaamijkii aroornimo oo aad kala socoteen Kow Somali Media saaka oo subaxnimo sabti inta ayaynu ku xireynaa insha Allah inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyada Ilaahay dushiina haato. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.